halkan idinkugu yimaado oo wafdi kala duwan oo xeeralihii guud iyo maxkamadii iyo saraakiisha amniga gobolkan ay idin yimaadaan waxay ka dhigan tahay in rajo weyn oo weyn la idinka qabo baahi weyn la idin qabo
waxaad ogaataan maanta Soomaaliya baahida ay askari wanaagsan u qabto siyaasi wanaagsan uma qabto bulshada baahida ay qabto asaasiga ah ay hadda taagan waxa cid xalli karto waxa way askari kaliya askari leena maahay askari wanaagsan ay xalli karo waxay bulshadu u baahan tahay in argagixisada laga difaaco laga celiyo waxay bulshadu u baahan tahay kuwa aqliga la ee qabaa'ilka isku diriraya in laga kala qabto waxay bulshadu u baahan tahay mooryaanta jidka taagan oo isbaarada dhiganaysa in laga qabto intaasna siyaasi wanaagsan ma qaban karo askari wanaagsan aan qaban karo waxaan kaloo ku kalsoonahay rajo weyn ka qabnaa baahi weyn u qabnaa in askarigii wanaagsanaa ee dalkan difaaci lahaa oo mushkiladaha iyo dhibaatada uu ku jiro ka bixi lahaay inaa idinka naqataan askartaasi waxaan aad iyo aad idinkugu bogaadinaynaa idina sheegaynaa ina raali leedinka yahay rajo weyn leedinka qabo baahi weyn leedin qabo baahida leedin qabo maanta qofka loo qabo oo Soomaaliya jooga ma jiro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmahan idin la joogtay oo bixinaysay tababarkan waxa kale oo aad ugu faraxsanahay in qarameyntii leedin sameeyay kadib inaad bilowdeen inaad qayb ka noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaad qaadanaysaan tababarihii leedinkugu talagalay inaad leedihiin ahmiyad maanta aad ku hogaamisaan dalkiina aad ka joogtaan magaaladan caasimadda u ah Galmudug laakiin waxaad hadda tihiin saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii aan halkan idinkaga tegay hadafkeenu waxa uu ahaa inaan ka shaqeyno sidii aad ku heli lahaydeen xuquuqda aad ku leedihiin dalkiina waxaan ku faraxsanahay in aad leedihiin hoggaan qaybta iyo guutada waad ka amar qaadataan idinkala shaqeeyana in la sugo xuquuqda aad ku leedihiin qarankiina haddii qaar idinka mida ay su'aalo ka qabaan ama ay wax ka noqdaan xuquuqdaasi waxaa jira dariiq la soo maro oo guutada aad ka tirsan tahay qaybta aad ka tirsan tahay halkanna waxaa idinla jooga dhalinyaro hogaamisa hogaamada ciidanka qaar ka mid ah hoggaanka maaliyadda oo Ibrahim hogaamiyo hoggaanka ciidanka oo Imraan hogaamiyo dhalinyaro yar yar oo mar dhow jaamacadda dibadda iyaguna ka soo qalin jabiyay waxaan rabaa inaan kala hadlo laba arrin iyo mid uu ka hadlay taliyuhu mid waxa ay tahay xuquuq midna waajibaad xuquuqdu waxa ay tahay waa in dawladdu ay idin siisaa wax walba oo xaq u leedihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa mustaqbalka dalka waa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa iftiinka dalkeena waa cid difaaci lahayd badeena dhulkeena waa cid hooyooyinkeen iyo abooyinkeen ka ilaalin lahayd cadawga waa cidina loo kaga cabsan lahaa sidaas daraadeed dawladda Soomaaliya waxa ku waajiba inay idin siiso wax walba xuquuqa waayahan waxaan ka shaqeynaynaa in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo loogaado tirada dhabta ay yihiin loogaado tayadooda waxay taliye qooje iyo taliye Mas'uud ku amran yihiin inay qayb ka qaataan dib u habeynta ciidanka lagu sameynayo waa sarkaal walba iyo askari walba inuu joogo goobtii loo asteeyay inuu ka shaqeeyo laakiin dawladuna ay bixiso xuquuqda ay leeyihiin idinku waxaad ka soo wareegteen urur Soomaaliyeed oo Al-Sunna la yiraahdo oo dalkan ka soo shaqeeyay oo amni ka soo shaqeeyay oo maamul soo ahaa laakiin hadda waxaad u soo wareegteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama la idin qarameeyay xuquuq aad leedihiin la idin tababaray aad labisantiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo laga bilaabo saacadan aan idin la hadlayo waxaa la idinkula xisaabtamayaa waajibaadka la idinku leeyahay meeshii aad ka tirsanaan jirteen iyo dawladda federaalka kama wada tirsanaan kartiin mana aqbalayo laakiin qof walba halkan jooga waxaan rabaa xuquuqdiisa in la siiyo bil walba inuu mushaarkiisa qaato hadduu cudur ku dhaco ama xabadi ku dhacdo in la soo qaado isla markii la keeno xamar si loo daaweeyo hadduu tababar u baahdo dibadda loo diro hadduu dhinto caruurtiisa xuquuqda la siiyo
waxaan rabaa inaad yeelataan xuquuq buuxda laakiin xuquuqda waxaa la socdaa waajibaad soo sidaa ma waxaad isu soo taagteen idinkoo saraakiil ah waa inaad fahamtaan sarkaalka macnihiisa sarkaalku waa indhaha ciidanka waa bilowga dawladnimada iyo madaxda idinka ah marka tusaalihii iyo iftiinkii sababtay muhiim u tahay marka inaad idinku muujisaan inaad tihiin hormuudka dalka waa sidaas awgeed waa soo dadaasheen shaqo badan baad soo qabateen laakiin waxaad saldhig u tihiin ciidan Soomaaliyeed oo la rabo inay soo celiyaan mustaqbalka iftiinka iyo iftiinka ummadda Soomaaliyeed oo aan jabhad iyo qabiil iyo dan gaar ahba lagu soo celin karin waa laga soo quustay ku dhowaad 30 sano sidaas daraaddeed waxaa laga rabaa jenaraal Mascuud iyo jenaraal Qooje iyagoo ilaalinaya waajibaadka iyo cadaaladda iyo xuquuqda saraakiishan in haddana la xaqiijiyo in saraakiishan ay u shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la islama barbar dhigi karo qof aan ciidanka u shaqeynay qof u shaqeeyo waa sababta aan ciidanka u diiwaan gelinay dalkoo dhan sababta qof walba mushaarkeeda koontay leeyihiin loogu soo shubo sababta loo joojiyey in mushaarka ciidanka iyo ciidanka uu qof u dhaxeeyo waa sababta aan u bilownay inaan musuqmaasuqa la dagaalano waa sababta aan rabno dib u habeynta qaybteeda labaad marka ay soo dhammaato inaan dib u eegno xuquuqda ciidanka si taas ay u dhacdo waan ciidanka aamin lagu qabi karaa waa inuu noqdaa ciidankii lagu soo ordaayey oo aanu noqon ciidan laga cararo waa inay noqoto bilowgii ammaanada bilowgii runta bilowgii sharafta halkan waxaa kaloonu imid maantay inaad idinkula dardaarmo laga bilaabo maantay waa in taliyaha qaybtiinnu isagoo idinka idin kaashanaya iyo taliyaasha iyo saraakiisha kale inaad bilowdaan inaad isu diyaar garaysaan sidii deegaankoo dhan looga xoreyn lahaa cadowgii aan ku ballannay in laga xoreeyo waxaan idinkala shaqayn doonaa aniga iyo madaxweynaha iyo taliyaha xoogga iyo dhammaan taliyaasha hoggaamada in laydiin soo dhammaystira agabkaa u baahan tihiin waxaa ciidan u tihiin dalka Soomaaliyeed laakiin deegaankan hadda aad joogtaan oo galmudug oo qaarkiin hore ugu soo dhaawacmay waxaa jooga wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo mustaqbalkooda mugdi ku jiro haddii aan cadowga laga xoreyn in cadowga laga xoreeyo oo mustaqbal loo sameeyo waxay ku xiran tahay damiirkiina sida uu noqdo sida aad u dhaqantaan idinku waxa ku xirnaan doontaa hadafka aad yeelataan waxaa la rabaa inta ay socoto dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug inaan ku dhinac wadno xoreynta dowlad goboleedka galmudug waayo habeenkii ka dhuma wiilka cadowga aad taqaanaan ku hoos nool waa habeen mustaqbalkiisa ka go'ay ama gabar Soomaaliyeed mustaqbalkeeda ka go'ay ama hooyo iyo aabbo Soomaaliyeed ay arkayaan mustaqbal gudcur ah sidaas daraaddeed xuquuq waajibaad saraakiil hoggaan agab la soo dhammaystiro iyo waxaan rabnaa inaan isku xirno in laga waayo dhammaan deegaanka galmudug wax la yidhaahdo cadow shabaab ama khawaarij ah kadib marka aad dhammaysaanna in laydin qaado dalka intiisa kale la idin geeyo ilaa waddankoo dhan aad ka tirtiraysaan haddii ilaahay yidhaahdo marka dambe oon ku soo laabta halkan marka qaarkiin waxaan rabaa
inay xarar dheere igu yeeraan, qaarna ceel dheer igu yeeraan, qaarna ceel buur igu yeeraan, qaarna ceel garas igu yeeraan. dhulkii tuugada iyo khawaarijta laga waayey, dhulkii dowlad goboleedka midaysnaa, dhulkii ciidanka xoogganaa, dhulkii soo celiyey sharafta Soomaaliyeed, dhulkii saraakiisha iyo ciidankooda isku xirnaayeen, dhulkii aqbalay in qarannimadu ay qawi tahay inaad ka dhigtaan rabaa halkan. waa mahadsantihiin. wasalaam.